kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani waa dooya dheer miidiya waa habeenimo arbaca ah taariikhduna waxay ku beegan tahay 13 bisha koobaad 2021 qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena habeenimana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay dagaaladii u dhaxeeyay Canfarta iyo Soomaalida iyada oo la sheegay in si weyn loo jabiyay ciidamada qoomiyadda Canfarta taliye ku-xigeenka ciidamada Liyuu booliska Sakariya Cabdi Khaliif oo ka hadlay dagaaladii dhexmaray Canfarta iyo Soomaalida iyo faahfaahin dheeraada oo hadalka taliyahaasi ku saabsan xaaladda wadamada Itoobiya iyo Suudaan oo maraysa meeshii ugu xumayd abid iyada oo labada dalba hanjabaadii ugu adkayd ay soo saareen kumanaan ciidamo ay ku sii qulqulayaan xadka labada dal faahfaahin dheeraada ayaynu ku eegi doonaa waxa iska bedelay dagaaladii awalba socday ee u dhaxeeyay Suudaan iyo Itoobiya dhinaca Soomaaliyana beesha caalamka ayaa war adag ka soo saartay doorashada la isku khilaafsan yahay ee dalka Soomaaliya dhanka kalena bog Facebook oo ku xiriirsanaa sida la sheegay bogga guddiga doorashooyinka oo la sheegay in si xun loogu aflagaadeeyay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeenimo ee channelka dooya dheer media ee daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan ku bilownay daawadayaal wararkii u dambeeyay ee naga soo gaadhay dagaalada xooggan ee u dhaxeeya qoomiyadaha Canfarta iyo Soomaalida ayaa wararka maanta ilaa iyo caawa soo baxay waxa ay sheegayaan in si weyn loo jabiyay ciidamadii qoomiyadda Canfarta ee isugu jiray Liyuu booliska iyo maleeshiyada waxaana la sheegay in ciidamadaas qaar badan oo kamid ah lagu laayay xuduudaha ay wadaagaan labada qoomiyadood halka inta baxsatayna la sheegay in firxadkooda uu midiba meel ka galay xuduudda dhinaca Canfarta iyada oo lagu soo warramayo in maanta gelinkii dambe ciidamada Soomaalida ee Liyuu booliska ay u talaabeen dhinaca qoomiyadda Canfarta iyaga oo gaadhay meel la sheegay inay deganayeen ciidamada Canfarta isla markaasina halkaasi ka kiciyay ciidamadii Canfarta ee deganaa waxaana la sheegay in ciidamada Canfartu ay dib ugu gurteen iyaga oo carara gudaha gobolka Canfarta ciidamada Soomaalida oo shalay iyo maantaba gurmadii ku gaadhay xuduudaha ay wadaagaan labada qoomiyadood ayaa waxaa la sheegay in weerar xooggan oo tirabeela ay ku soo qaadeen ciidamada Canfarta isla markaasina sidaas lagu jabiyay ciidamadii qoomiyadda Canfarta ee weerarka qaawan ku soo qaaday shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada Liyuu booliska ee ku sugan xuduudaha labada qoomiyadood kadib markii gurmadyo badan ay isu yimaadeen ayaa waxaa la sheegay in ciidamada Canfarta ay si weyn u jabeen iyaga oo lagu soo warramayo oo dadka deegaanka ay sheegayaan in xilligan uu meydka ciidamada Canfartu daadsan yahay goobihii dagaaladu ay ka dhaceen sidoo kale tuulooyin dhowra oo shalayta ay la wareegeen ciidamada Canfarta ayaa la sheegay in gabi ahaanba dib looga qabsaday iyada oo ciidamadii Canfarta si weyn loo jabiyay isla markaasina laga saaray deegaanadii ay shalay imaadeen maalinimadii shalay ayay weerar gaadma ah soo qaadeen ciidamada Canfarta iyaga oo weerarka ka soo qaaday meelihii laga filayay meel aan ahayn waxayna ka soo qaadeen meel ay ku sugnaayeen ciidamada militariga Itoobiya oo iyagu sheegay in ay kala dhex fadhiisanayaan ciidamada qoomiyadaha Canfarta iyo Soomaalida ciidamada Canfarta ayaana shalayta weerarka ka soo qaaday goobihii ay deganayeen ciidamada militariga Itoobiya taasi oo dhalisay shaki aad u xooggan oo ku aadan in ciidamada Canfartu ay ka soo qaadeen goobihii ay deganayeen ciidamada militariga Itoobiya inay si rasmi ah u muujinayso in ciidamada militariga ay qayb ka yihiin weerarada joogtada ah ee maalin walba iyo bil walba ay soo qaadayaan ciidamada qoomiyadda Canfarta maamulka dawladda deegaanka Soomaalida ee uu hogaamiyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa iyaguna maanta waxa ay la kulmeen odayaasha salaadiinta iyo waxgaradka ee dawladda deegaanka Soomaalida ee ku sugan magaalada Jigjiga waxaana la sheegay inay kala hadleen arrimo la xiriira dagaalada soo noqnoqday ee ka soconaya xuduudaha ay wadaagaan labada qoomiyadood ciidamo aad u tiro badan ayaa waxaa la sheegay in ay buux dhaafiyeen goobihii ay dagaaladu ka dhaceen iyo sidoo kale xadka labada qoomiyadood ciidamada Liyuu booliska ee Soomaalida ayaa la sheegay in maanta geed walba ay taagnaayeen iyada oo ay raad goobayeen maleeshiyaadka qoomiyadda Canfarta dhanka kalena taliye ku-xigeenka ciidamada Liyuu booliska Sakariya Cabdi Khaliif oo ka hadlay dagaaladaasi iyo arrimo kale oo dhowr ah waxa uu sheegay in ciidamada Liyuu booliska ay qaadeen tallaabo taasi oo lagu sugayo amniga deegaanka
taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga gaarka ah oo waraysi siiyey warbaahinta deegaanka ayaa waxa uu sheegay in ciidanka gaarka ah ay si buuxda u sugayaan amniga deegaanka Soomaalida isla markaasina ay dib u jabiyeen ciidamadii Canfarta ee weerarka gardarrada ah soo qaaday gaashaanla sare Sakariya Cabdi Khaliif taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga gaarka oo maanta warbaahinta deegaanka waraysi siinayay ayaa waxa uu sheegay in ciidanka gaarka ah uu sugayo ammaanka deegaanka isla mar ahaantaasina aysan jirin dhul ka mida deegaanka Soomaalida oo cid kale gacanta ugu jira xilligan taliyaha oo ka hadlayay colaadda ka taagan galbeedka gobolka City ayaa waxa uu sheegay in damac dhuleed uu dabada ka riixayo maleeshiyada Canfarta oo ay rabaan in dhul hor leh ay qaataan marka laga tago dhulkii hore sida sharci darrada loogu wareejiyay waxa uuna sheegay in muhiim ay tahay in colaadaas si nabada loo dhameeyo dowladda deegaanka Soomaaliduna ay diyaar u tahay xal noocaasi in laga gaaro colaadaas maruu ka hadlayay waajibaadka ka saaran ciidanka xoogga gaarka sugidda amniga ayaa waxa uu taliyuhu sheegay in ciidanka gaarka ah ay ku filan yihiin inay ilaaliyaan dhulka iyo hantida shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka waxa uuna taliyuhu intaas ku daray in ciidanka deegaanka Soomaalidu uu nafta u hurayo ilaalinta shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka gacan bir ahna ay ku qabanayaan wixii duulaana ee sharciga iyo kala dambeynta deegaanka ka hor imanaya waxa uu sheegay in dagaal iyo weerar gardarro ah oo ciidamada Canfartu ay soo qaadeen ay jiraan kuwaas oo si gaadma ay u soo qaadeen balse markii dambe iyaga la jabiyay isla markaasina dib looga bixiyay deegaanada Soomaalida ayna dib ugu carareen gobolka Canfarta sidoo sheegay taliyaha ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay in dadka shacabka ah ay la shaqeeyaan ciidamada Liyuu booliska ee deegaanka isaga oo sheegay deegaanku inuu aad u ballaaran yahay isla markaasina uu xuduudo badan la leeyahay wadamo iyo sidoo kale deegaana kamid ah Itoobiya waxa uu sheegay in deegaanku uu qaybo badan xuduuda la leeyahay sida wadamada Soomaaliya Kenya Djibouti iyo qaybo badan oo ah dhinaca Itoobiya intaasi oo dhan ciidanku uu ku filan yahay waxa ayna qaadi karaan tallaabo kasta oo loo baahdo meel kasta oo lagu jeeyo ciidanka Soomaalidu waxa ay ka qaadi karaan tallaabo bir ah mana aaminsanin qoomiyad Itoobiya kamid ah ama dhinac kale ah in ay hor istaagi karto ama ay dagaal kaga horeyn karto ciidanka deegaanka Soomaalida sidoo sheegay wuxuu sheegay ciidanku inay nafta u hurayaan oo ay u dhimanayaan shacabka Soomaaliyeed isla markaasina haddii ciidanku ay shacabka iyaga oo difaacaya u dhintaan inaan la boonboonin oo baraha bulshada aan loo adeegsanin waxyaabo khaldan ciidanka dhimashadiisu waa mid loogu talagalay ciidanku ma aha hay-adaha horumarinta dhaqaalaha iyo sidoo kale wax soo saarka beeraha ee ciidanku waa ciidan hubaysan oo loogu talagalay inay dhintaan inay shacabka difaacaan ayuu sheegay dhanka kalena dad aad u tiro badan oo isugu jira shacab iyo ciidan ayaa waxaa lagu laayay deegaanka Benshangul dadkani oo tiradoodu ay isku gaadhayso ilaa iyo 60 qof oo isugu jira shacab iyo xubno kamid ah militariga ayaa waxaa lagu laayay gobolka Matakal gobolkani ayaa dhawaanto xaalad degdeg ah lagu soo rogay gudiyada loo dhisayna waxaa si toos ah u maamula ra'iisul wasaaraha dalka dhacdadani ayaa waxa ay dhacday 3 cisho ee la soo dhaafay sida maamulka deegaanka ay xaqiijiyeen weeraradan lagu laayay dadka tirada badan ee kor u dhaafay 60 qof ee isugu jira militariga iyo shacabka kaga soo jeeda qoomiyadda Axmaarada ayaa waxa la sheegay inay ka dambeeyeen maleeshiyaadka soo jeeda qoomiyadda Benshangul Gumus gobolka Matakal ayaa aad loogu laaya mar walba dadka Axmaarada waxayna dawladda Itoobiya ku eedeysay jabhadda ka dhaqdhaqaaqda gobolkaas inay xiriir la leedahay dalka Masar oo ay hubsaanad iyo dhaqaale ka helaan dhanka kale wadamada Itoobiya iyo Suudaan ayay xaaladoodu waxa ay maraysaa meeshii ugu xumayd iyada oo wadamada Itoobiya iyo Suudaan aynu ogeynay muddo ka badan 3 toddobaad ay ku dagaalamayeen xadka ay wadaagaan labada dal ayaa haddana xaaladu ay si khalaaraatay waxaana fashilmay oo lagu kala tagay wada hadalkii ay lahaayeen wadamada Itoobiya Suudaan iyo Masar kaasi oo la xiriiray biyo xidhanka webiga Niil ee Itoobiya ay dhisayso dawladda Itoobiya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in Suudaan ay sugan tahay deegaana ku yaala gudaha dalka Itoobiya iyo sidoo kale gobolka Alfashaqa waxa ayna sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya in Suudaan ay ka faa'iideysanayso mashquulka iyo dagaalada ka soconaya gudaha dalka Itoobiya sidaas darteed in ay qaaday tallaabooyin sharciga baalmarsan maanta iyo shalay ilaa iyo caawa ayaa waxa la sheegayaa in kumanaan kamid ah ciidamada militariga Itoobiya ay u dhaqaaqeen dhinaca dalka Suudaan inkastoo markii hore
ay dagaalla jireen balse ma aysan ahayn dagaalla labada dhinac aysan waxba isula hadhin waxaana islaynayay ciidamo ku sugan xuduudaha labada dal haddana waxa ay u muuqataa in wadamadu dhammaanba ciidamadoodii iyo gaadiidkoodii dagaalka iyo wax kasta oo ay hayeen ay isugu geeyeen goobaha dagaaladu ay ka jiraan ma aysan jirin duqaymo ay magaalooyinka caasimadaha iyo dhulka iska duqaynayeen labada dal dagaalku waxuu ku ekaa xuduudaha waxaana dagaalamayay ciidamo labada dhinac kasoo kala jeeda oo ku sugan deegaanadaas balse hadda labada dhinacba waxa ay u istaageen inay qaadayaan tallaabo kama dambaysa oo dhagaha faraha la gelin doono sida labada dalba war ka soo baxay lagu sheegay dowladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in tallaabo cad ay qaadayso oo ay uga argudanayso tallaabooyinka ay qaadeen militariga Suudaan dhankeeda waxa ay sheegtay iyaduna wax kasta oo dhacay inaysan ka laabanaynin gobolka Alfashaqa ee ay la wareegtay waxaana isha lagu hayaa xaaladda labadani dal oo arrintoodu meeshii ugu xumayd hadda ay taagan tahay dhanka Soomaaliyana beesha caalamka ayaa war ka soo saartay arrimaha xasaasiga ee la xiriira doorashada dalka ee la isku fahmi laayahay ilaa iyo hadda iyada oo dowladda mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyadu ay si weyn isugu diidan yihiin doorashadii la rabay in dalka ay ka qabsoonto war saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu muujiyay walaaca ay ka qabaan ismariwaaga ka taagan hirgelinta heshiiskii doorashada ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu ay gaadheen 17 Sebtembar ee sanadkii dhamaaday saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxa ay aad uga walaacsan yihiin ismariwaaga ka taagan hirgelinta hanaanka doorashada ee 17 Sebtembar ay ku heshiiyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka waxaana ugu baaqaynaa saamileyda siyaasadeed ee sare inay muujiyaan hoggaan iyada oo la tixgelinayo danta ummadda iyo in sida ugu dhaqsaha badan loo xalliyo arrimaha ka taagan hirgelinta iyadoo loo marayo isu tanaasul si loo sii guda galo geedi socod doorasho oo lagu kalsoonaan karo oo u dhacda sida ugu dhaqsiyaha badan ay beesha caalamku sheegtay saaxiibada caalamku waxa ay ka mahad celinayaan dadaaladii lagu dhaqaaqay dhowaan gaar ahaanna waxa ay soo dhaweynayaan booqashadii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ku tagay Galmudug iyo Puntland wada hadalladii dhex maray madax sarsare oo badan oo Soomaaliyeed oo Garowe uu ku martigeliyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Daniye iyo xiriiradii ay sameeyeen madaxweynayaasha Galmudug Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor oo soo gudbiyay tallaabooyinkii ka yimid Garowe una soo gudbiyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayay beesha caalamku sheegtay saaxiibadu waxa ay garwaaqsan yihiin in heshiiskii Sebtembar 17keedii ay saxiixeen dowladda federaalka iyo dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo labada gole ee baarlamaanka waxaana sidoo kale soo dhaweynaynaa musharaxiin badan oo u taagan xilka madaxweyne inkasta oo saaxiibada iyo dad badan oo Soomaaliyeedba ay ka niyad jabeen in hanaanka doorashadu uu aad u hooseeyay oo la doonayay dalka in laga qabto qof iyo cod ayaa haddana heshiiska 17 Sebtembar waxa uu yahay aasaaska kaliya ee la aqbali karo in loo maro doorashooyinka sanadka 2021 ma jiri karo dib u furid lagu sameeyo heshiiskii la gaadhay 17 Sebtembar ama abuuritaanka hanaan kale ama mid barbar socda waxaa loo baahan yahay in isfaham ballaaran oo loo wada dhan yahay laga gaadho waxyaabaha isku hayaan labada dhinac ayaa la sheegay beesha caalamka ayaa waxa ay sheegtay inaysan marnaba iyadu aqbalayn in dib looga laabto heshiiskii la gaadhay isla markaasina hadda iyo kow loo fadhiisto heshiis kale sidaas darteed beesha caalamku waxa ay taageersan tahay heshiiskii hore loo gaadhay dhanka kalena bog Facebook oo la sheegay inuu ku xidhan yahay bogga guddiga doorashooyinka ayaa waxaa la sheegay in lagu aflagaadeeyay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud bogga Facebook oo ah mid ku xiriirsan bogga rasmiga ee guddiga doorashooyinka qaranka ee lagu muransan yahay ayaa lagu aflagaadeeyay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sida ay muujinayaan muuqaalo iyo warar soo baxaya kuwaasi oo meelo badan lagu baahiyay bogga rasmiga ah ee guddiga doorashada waa www.doorashada 2021.so waxaana ku jira dhammaan macluumaadka ku saabsan xubnaha guddiga shaqadiisa iyo ujeedooyinka guddiga sida
sida kalena waxaa ku jira wareegtadii lagu magacaabay guddiga taasi oo ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha November 2020 marka aad booqato ama aad soo gasho bogoni wata domainka .so ee rasmiga ah oo guddigu uu ku faafiyo hawl maalmeedkiisa waxa aad arki kartaa dhammaan sawirada xubnaha guddiga loogu talagalay in ay maamulaan doorashooyinka madaxtooyada iyo sidoo kale midda baarlamaanka ee sanadka 2021 qaybta hoose ee bogani ayaa waxaa ku jira xiriirka bogga Facebook oo isla guddiga ah oo marka aad kliksiiso si toos ah kugu geynaya midkaasi guddiga waana halkaasi meesha lagu soo qoray qoraal lagu aflagaadeeyay madaxweyne hore xasan sheekh maxamuud qoraalka la soo dhigay bogga Facebook ayaa waxaa qoray nin lagu magacaabo Farxaan Gurxan oo aan la aqoonin waxa uu yahay bogga Facebook ah ee aflagaadada sameeyay ayaa waxa markii dambe laga furay bogga www.doorashada2021.so kadib markii arrintani ay qabsatay baraha bulshada haddana waxaa la xaqiijiyay in boggaasi uu yahay midka lagu aflagaadeeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud guddiga ayaa kadib qoraalay soo dhigeen bog kale oo ay ku leeyihiin Facebook waxa ay ku sheegeen in boggaasi aflagaadada lagu sameeyay uusan ahayn midkooda oo uu yahay been abuur hase yeeshee waxaa su'aala maxaa markii hore ku xidhay bogga rasmiga ah ee doorashooyinka qaranka arrintani ayaa waxa ay dhaawacaad xoogan gaarsiisay sumcadda guddiga doorashooyinka waxaana hadalla iyo shaki aad u xoogan ka keenay mucaaradka iyo sidoo kale dad badan oo Soomaaliyeed dhanka kalena madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu wajahayaa xilka qaadis iyo dacwada xasaasiya madaxweynaha xilka ka sii degaya ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu wajahayaa qorshe xilka looga qaadayo ka hor inta uusan xilka wareejinin kadib tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee uu qaaday aqalka wakiilada Mareykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay qorshahaasi kaasi oo afayeenka aqalka wakiilada uu la wadaagay xildhibaanada aqalkaasi si xilka looga qaado madaxweyne Donald Trump Nancy Pelosi afayeenka aqalka wakiilada ayaa waxa ay sheegtay in qorshaha xilka xayuubinta Trump cod loo qaadi doono maalmaha inagu soo aadankaasi oo uu fulinayo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Mike Pence ayaa laga dalbaday in uu wax ka bedelo ku sameeyo qodobka 25aad ee dastuurka Mareykanka kaasi oo uu ogolaanaya in xilka uu sii hayo midaas oo fududeynaysa in aqalka cad laga saaro madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu wajihi doonaa eedeymo culus oo la xiriira kicin iyo kaalintii uu ku lahaa dadkii caraysna ee gudaha u galay dhismaha aqalka Koongareeska oo ay xilligaasi ka socotay ansixinta guusha madaxweynaha cusub ee dalkaasi Joe Biden ilaa iyo hadda ma jiro wax wara oo ka soo baxay Donald Trump oo la xiriira qorshaha xilka looga qaadayo tan iyo markii laga mamnuucay baraha bulshada gaar ahaan barta Twitter-ka oo si weyn uu wax ugu qori jiray guud ahaanba baraha bulshada ayaa laga mamnuucay madaxweyne Donald Trump xataa waxaa laga mamnuucay baraha bulshada ee wadamada kale laga leeyahay sida baraha bulshada TikTok oo laga leeyahay dalka Shiinaha Trump ayaa u muuqda inuu xaalku ku sii xumaanayo kadib markii uu isku dayay samaynta wax lagu tilmaamay in ay meel ka dhac ku yihiin dimuqraadiyadda Mareykanka tan iyo markii la shaaciyay guuldaradii doorashada ee uu la kulmay